waa qaar ka mid ah muruqmaalka ku nool degmada Xudur ee gobolka Bokool. xaaladda adag iyo shaqooyinkoodii oo muddo 4 bilood ah hakad ku jiray ayaa bedelay noloshoodii iyo nashaadkii nololeed ee ay haysteen. bakaaradii raashinka kala duwan ee maciishada raashinka lagu kaydin jiray dadkan ay wax ka iibsanayeen ayaa haawanaya oo noqday kuwa albaabada loo laabay iyo kuwa sidii howlalka shirarka oo kale lagu sheekaysto. markii 4 bilood magaaladan Xudur wax gaadiid ganacsi ah soo gelin. bakaare oo waliba magaalada Kiyaal dhan uma kiikaynay sakan ataan sangaragaasan dadka inta fadhiisan raasan ganacsiga walaysan taanka galana ganacsiga biladku walintan isku kaftan andan isku hubeen walateed dhan hireen ma aragna adii fiican marti kulli wal dar email karaara oo balbalahan tukaan karaara waa barday wal raashin yaalo lama haaf isla yaalan ma ka aragay waa marxalad degmada Xudur weligeeda soo marin bulshada ku nool. laakiin dadka qaar waxay sheegayaan in tani ay xasuusinayso 1991 waqti dalka burbur cagaha uu la galay. mahal 1991 xilligii oo madi walba la aamal waay jiditeelka leeday oo yaani 19 xilligaas ah marti oo jiditeeda dadka leedayeen oo guhutiyaasha liimbahajari oo magaaje buu iraan goorisay lambaneefka lay goorisay wala ama kala naayn neefteed hool ay goorisaday hool la gooriray laga noolay xilligaas ila tagmar waxa kaliya ee bulshada magaalada Xudur ay ku nool yihiin oo ay cun ahaan u heli karaan waa dalaga beeraha ka soo go'ay oo dadka kaydka haystay suuqa la yimid. tani oo ka dhigan in magaalada cun ahaan hadda waxa laga isticmaalo ay tahay hilibka, caanaha iyo dalagyada beeraha. inkastoo ayaxa uu saameyn ku yeeshay dalagyadii beeraha ee la sugayay inay dhawaan soo go'aan. hadda mayl uudada haya sida shoodago misga qof diris ee walaalay masakasi qofka beer walaaho ku qoosdi karsugo amalkasi masakiilado bariis isu muskiilado ba amalkoosiya oo kala walsaas ee muslimka dadka walaalnyaga ee masana yaani diriska ayna balamad ya kala noolno maahin wal hata intaasay bilood aan takiin sheego nololayna shaga ahaan uu ku qabanay ya habayaraata liin aragaan. tirada baabuurta degmada u soo socotay ee badeecadaha soo waday ee la gubay muddada 8 sano ee degmadan ay go'doonsan tahay ayaa la sheegay inay gaarayaan 35 gaadiid. tani oo xaaladda nolosha iyo ganacsi ee degmada aad u dhaawacday. iyadoo maciishadii dhamaatay beeladka walayaan iyo waliba la kulmeena gubki lamaad oo la ganacsatada yaab ganacsato isku dan yar aw ganacsato intan ka noolaytiyo meel raayis dekedan qabna hoolkalan qabadaan wala yo ka noolin waliba beer i ganacsi la hatana jidhirina an ka darsanti waliba nagadeena macnaha madan culayski soo iyo xilliga roobka oo ku bahaw wala yaro haysidaan yo walka darsadan markan intii dhibaatada lan walba meeliska saamayto nagati. inkastoo hay'adaha qaar iyo wasaaradda gargaarka ee koonfur galbeed ay ka deeriyeen sida bulshada gobolka Bokool ay macluul qarka uga saaran yihiin ayaa haddana gudoomiyaha degmada Xudur waxa uu mas'uuliyadda halista ee halkan ka jirta dusha uu ka saaray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. daasortirlan kile wal ogi way baa dalka dawladda lata dawladda haylata dawlad goboleedka lata walaa dhawaataas dhii ونفتتين سامعني ولداس لكن إنه كوري دولة إنه كوري ون دولة مثلاً أنت روجنا والجرانتين كجرم الله هدي جرجار لفظه هي ده تكامرة ودولة دو هدي معنا والكل شانة فدي دتكشانة فدي دولة دو لكن وكيل ويبقى أنتم كنا دولة ده أنتم وكيل كنا شعب كاسك داجرن لبعتون كاس ومسؤولية دي كلها إلهي كسوكة ويبقى الدولة ده كلها دولة لها مدوين فرماج رنتي أنا قبل كان سومالي كترسني إني كلا هو قال مين إني لجيس إني لجيس المشيني وندت كي دولة جن وجر إني لجيس إني كالمشيني وين ما نقارن مدوين عبد العزيز أول بان كنا نقدي أنت ديانك أول بان كوي هرمر بان لفادي لانك ما يلري فرتوشلي فورم دعاس لانك شلي زوال مقابله مدوين عبد العزيز ديوس قرب هاي سده ويبقى مسكين أني ديانك أول بان كوقابل فادي الدولة ده قدام بيت والأول ولا يجيك بعد السياق اللي سياو لك حق بتراو أنا تاسوي بقى من سنة أنا ما ندين قربان وقوة فادي.